السلام عليكم أصحابتي قاليga soo dhawaada alaabtan aa u jeedin waxa loogu talagalay ragga xaaslayaasha ah casho yani ramadaan markay tahay casho waxa waay xoogaa yar nafaqo badan qofka waxa la rabaa inuu ku afuro wax cunto fudud soo cuntadan uu ugu casheeyo waqti horena uu cuno sida u sameeyna insha Allah idin la wadaagi doona lasagna la dhahaa pasta lasagna dibsiga waxa soo saartay laba qaando oo saliid ah waxaan ku daray haddana laba xabo oo basal oo aad loo yareeyay basal sidii sambuuska oo kala u soo sameynay hada haystid makiinad ku yareeyay hadii kalena mindida iska yareeyay kadib waxa ku darayaa nus kiilo ama rubac hilib shiidan hilibka waa bisleenay yani waa qalajinay kadib waa shiidnay waa ku korshubay hilibka rabtida isticmaal kartaa suugadii oo baastada sameynooya aadeen u fududahay suugadeeda baastadan wayna nafaqo badan tahay wayna dhadhan macaan tahay insha Allah arki doontiin hadda waxaan adeegsanayaa yaanyada gasaca hadaa rabtidna waxa isticmaali kartaa yaanyada oo dalka kaliya waxa ku darsataa shiishid hadii kalena yaanyada gasaca isticmaal insha Allah hada saddex shay oo kaliya meeshan ku jirto waa basal hilib iyo yaanyada labada nooc ah idin sheegay mid ka rabtida isticmaal kartaa ama mid gasaceysan ama mid shishiidka yani oo dalka waxa ku daray hal qaando haafkeed filfil ah iyo biyo hilibka saa idin sheegay wuu bisil yahay yani waxa rabaa oo kaliya hilibkii iyo basashi iyo yaanyadii inay isku sii yara bislaadaan si dhaxgalaan ma fahamteen intaas marka ay isku soo bislaadaan oo suugada biseelkeeda in yar ka dhiman tahay waxa ku daray hal qaando oo kabsar iyo toon ah isku walaaqaya kadib last marka ka dijir rabtid waxa ku daraysaa hal xabo barbarooni oo asna aad u soo yareeysay wuxuu ku siin doonaa insha Allah caraf kale oo gooni ah suugadeena saasay ku dhan tahay wax basal yani wax bardar lagu ma darin hada waxa diyaarsanaynaa bashameel ama kareemkii loogu talagalay baastada koobka ah heesto ayaa qiyaastiis adeegsanaya adina koobka ah helaysid qiyaastiis isticmaal 4 koob oo caano ah caanaha caadiga gasaca boqoraha ayaa adeegsanaynaa in caano ah heli kartid waa 4 koob oo caano ah koobka shaaha waa ku qiyaas kartaa koobka yaryar ee cabitaanka waa ku qiyaas kartaa hadba koobka ah helaysid sidoo kale 4 qaando oo aad u buuxbuuxo oo bur ah ayaan ku darayaa hadaa doontid burka iyo caanaha intaadan dabka saarin ayaa isku qasaysaa markaas isku burburinaysaa kadib aad dabka saarnay hadii kalena inta dabka saaratid ayaa isku shiidi doontaa waxa ku daray hal qaando oo filfil ah sidoo kale qaando haafkeed oo cusbo ah waa fahamteen afila suugada hadaaya cusbada idima sheegin way ku jirtaa yaan la iloobin cusbo ama maxaa la dhahaa maraq digaagka isticmaashid hada waxa uu adeegsanayaa qaandada waxyaabaha burburka ayaan ka tirtirayaa marka waxa rabaa inaan saas gacanta ugu wado ilaa ka burburo hadii ay ku fududahay waxa sameeysaa qalaadada ku shiid hadii ay ku fududahay burka in yar inta 4 qaando soo qastid biyaha caanaha ku soo kordar sida u jeedin hada uu soo adkaaday marka saas oo kale u soo adkaato waxa ku dareynaa jiis hadaa aadan haysanin waa ka maarmi kartaa hadii kalena waxa ku bedelan kartaa jubnada ama farmaajada baasha la dhaho saasayna noogu diyaarsan tahay waxa halkan noogu diyaarsan biyo dabka saaray waa biyihii baastada ku karin lahayn waxa ku darayaa 3 qaando oo saliid ah biyaha oo dabka saaran yani 3 qaando saliid ah iyo in yar oo cusbo ah ku daray baastada isticmaalayna waa tan lasagna waxa ka helaysaa supermarketyada midnimo xayaadna waa ka helay labadooda buu yaalaan tan midnimo ka soo gatay waxa biyo markay soo karkaraan ku dareynaa 5 xaba u karineena waa fahamteen Soomahan oo baastada kulli lagu moodo shuba hadii kale hadhow iskaga ka dhigdhigaysaa 5 xaba markay soo yar bislaato baaquli kale ayaa waxa ku soo diyaarsanaysaa biyo kadibna waa ku dhaxridaysaa kadib waa saas ku kala fujinaysaa saxankaas saaranaysaa insha Allah inta saxanka ku ridridinaysid inta kalena inay ku sii saarnaataa la rabaa saxankii had soo diyaarsaday oo foornada
waxaan hadda saarayaa waa baastadii markay soo yara bislaatay. baastada marka bislaanshaheeda waxaa ku garanaysaa waa sida baastada caadiga ah oo kale, gacantaada ku dareemaysaa. suugada ayaan soo qaadanaya. haddii baastada lacala kaaga go'do dhib ma lahan, dhankii ay kaa banaanaato waa kabi kartaa. muhiimaddu waxay tahay salka dhan inaa wada baasta ka dhigtid, kadibna leeyarka ku xigo ama dabaqa ku xigo oo aad ka dhigtid suugada markaa saartid. haddan waxaan sameynaynaa insha Allah oo ayada dhan aan wada saarno. iga raali noqda kaamirada ani iyo cuntadii wixii waa isku sameynayaa, yani si fiican uma kontroolin, saxanka qeybaa iga qarsoon, laakiin I hope ina intaan aa aragtiin aa ku fahmi kartiin. kareemkii ama bashameelkii aa sameynay ayaan haddana korka kaga shubeynaa. waxaan dhahay baastadii salka saaray, kadibna suugadii, kadibna kareemkii, kadib baasto kale ayaan saaray. hadda waxaa sameynaya kareemka toogtaaneeta baastada ku xijinaya. muhiim ma ahan inaa baastada suugada iyo kareemka aa kala hormarsiisid, marka mar walba yani sidii ay kuu qabato aa u sameysan kartaa. ma fahamteen? wax oo cashir oo xifdis ahoo la bedeli karin ma ahan. suugadii haddana korka ka saarayaa, baastadii kareemka ku xijiyay ama bashameelkii, suugadii hadda korka ka saaray. kadib insha Allah haddana waxaa sameynaa leeyarkii saddexaad. leeyariska ama dabaqyada waa badsan kartaa, 3 leeyar ka dhigi kartaa, 4 ka dhigi kartaa, 5 ka dhigi kartaa. hadba waxay ku xiran tahay inta qofooda tihiin ama inta yani saxankaaga dhirirkiisa uu leeyahay. leeyarka ugu dambeeyay waa ka saasnay kareemkii aan soo saaray. kareemka marka aan soo saaray kadib waxaan sameynaynaa insha Allah suugadii haddana inaan korka ka saarno. ogaada insha Allah leeyarkan waa leeyarka ugu dambeeyay ama dabaqa ugu dambeeyay. waxaa rabaa marka inaa suugadii si fiican u saaro. mar walba waxaa ku dadaashaa suugadaada inay u badnaato qaybta ugu koreyso, qaybta hore aa kasoo babaqayshid xoogaa yar. suugadii yaa saareynaa, si fiican ayaan ugu dabooli doonaa insha Allah. kadib waxaan adeegsan doonaa haddii aa helaysid jiis inaa korka kaga shubtid. haddii aadan helayninna waxaa ka qurux badan ama aa sameysan kartaa ukunta qaybteeda jaalaha ah inaa garaacdid oo saliid yar hal qaanda aa ku garaacdid, kadibna aa korka kaga shubtid. muhiimadda jiista hadda loogu kor shubaayo waxay tahay kaliya inuu noo gaduudiyo. soo haddaa gaduud u baahannahay waxaa adeegsan karnaa oo kale ukunta qaybta jaalaha oo kaliya garaac, saliid hal qaanda ku dar, kadibna korka kaga shub. wax ay isdhaamaan ma lahan, kaliya dhadhanka ay ku kala duwanaan doonaan insha Allah. marka waxaa la dhahaa timir haddii la waahee bedelkeeda lama weynayo. kadib jiista marka aan ku dhameyno foornada ayaa gelinaynaa, kor iyo hoos u shidi doonaa. foornadaada lambar oo dhexdhexaad u geyso. hadda waa ujeedin way soo bislaatay maasha Allah. sidii la rabay noqotay. mindidaas ku jarjareynaa. leeyariskeedana waa kaasaa 3 dabaqood. waa ujeedina u maleynayaa. haddaa rabtid waa ka badsan kartaa dabaqyaasha insha Allah. baastada sidaa ujeedin baasta nafaqo badan waaye, sidaas darteed waxaa loo dhahay baastadan waxaa waaye ragga xaasalayaasha loogu dadaalo, ragga xaasaska leh yaa. iskaabuladana kuley way iska raali noqonayaan oo ayagana wax nafaqo leh way u baahan yihiin, laakiin waa looga sii baahi badan yahay. insha Allah waxaa rajeynayaa inaa aad uga faa'iidaysateen, aad sameysan doontaan. mar walbana waxaan idinkula dardaarmayaa cuntadan markaa cunaysiin afurka inuu ahaado afur fudud oo yani zaa'id u fudud. shoorba hadday noqon lahayd ama timir iyo biyo, si cashada culus oo qofka uu qaato. ma fahamteen insha Allah. cabitaanadana cabitaankan inuu ahaado cabitaan fudud. cabitaanada sheega ama cabitaanada culus laguma qaadan karo. mahadsanidin asxaabteyda qaaliga ah. wassalaamu calaykum.